marka qofkii su'aal qaba oo ama aniga raba inaan weydiiyo oo ah ninka barnaamijka isku soo dubaridaya ama weydiinaya dadka maanta nagala soo qayb galay telefoonka aad naga soo wici kartaan haddaad rabtaan inaad wax su'aal aad dibataan waa telefoonka 612 335 waxaan rabaa haddaba cabdi aar waxaan malaynayaa wax muhiim aad ka hadlaysay hase ahaatee laba su'aalood oo dadka online-ka ay ku soo weydiiyeen su-aasha koowaad waxaan weydiinayaa ama labadiinaba waa ka jawaabi kartaan shirka qaatumo muxuu ka bedeli karaa xaaladda cakiran ee ka jirta deegaanada SSC oo shirka soo socda ee qaatumo muxuu ka bedeli karaa su-aasha labaadna aan idiin sii raaciyo midaad doontaanna waa ka jawaabi kartaan maxaa ka jira in hogaanka SSC la bedelay qalif la bedelay mise la bedelo la bedelay bismillaahi raxmaani raxiim anigu haddaan ku hormaro runtii cabdiaar waa boobaya markaa iska dulqaato shirka khaatumo niman odayaala baa runtii fikirkeeda lahaa nimanka odayaasha wax badan waxaa dadku isweydiiyeen haddaanu nahay bulsho weynta sool sanaag iyo cayn maxaa ku dhacay dadkii aqoon-yahanada ahaa wax garanayay ee u dhashay gobolada waxaad moodaa markaa nimankii aqoon-yahanada ahaa niman 6 odaya runtii muxtarima in ay arintan iyaga laftoodu ay miisaaniyad waqti geliyeen isugu yeedheen aqoon-yahanadii iyo dadkii muxtarimka ahaa runtii intii kari kartay runtii marka waqtiga lama odhan karo dadkii oo dhan baa ku dhammaa adduunkana ma jirto wax la yidhaahdo waa u dhan yihiin oo wax dhammaadahay ma jiro wax kastoo la qabto waa tii shirkii London lagu qabtay runtii shirkii London marka la qabtay qodobaa ka soo baxay runtii qodobadaa ka soo baxay waxaa ka mid ahaa ugu muhiimsanaa runtii kole anigu sidaan aad wada ogtihiinba in siyaasadihii baahsanaa iyo ururadii badnaa ee jiray in lagu midoobo hogaanka SSC waxaa iyana ka soo baxday maadaama dadka is wada shirayay ay ahaayeen dad dhammaantood qurba joogaha in shir taladan lagu celiyo dadkii dadka deegaanka u ahaa iyo cuqaashii wadanka joogtay runtii dhammaantood shirkaas isaga laftiisa hadda waa kan aad maqlayseen shalay mooyaane doraad habeen hore waa ta ay tageen dadkii guddiga loo saaray inay soo diyaariyaan oo soo qaban qaabiyaan talana ka soo bixiyaan runtii waxaan qabaa haddii dadku wada hadlo oo isu yimaadaan iyadoo si tolnimo ehelnimo islaamnimo muslimnimo ay u wada hadlaan oo ay ka doodaan ama ay yiraahdaan war maxaa yaala maxaynu dadkeena u qabanaa sidaynu midnimadeena u soo ceshanaa waa maxay gaabka ama meesha ugu sareysa qofku wuxuu doono aamini karaa qofku wuxuu noqon karaa maamulku doono ku jiri karaa qaar baan ahayn wuxuu doono ahaado laakiin qofka waxaa la rabaa in uu gaadho gaabska qofka tolnimada ama ehelnimada ee uu qofku gaadhayo meel qofku uu qof waliba uusan dhaafi karin waa inuu jiro marka haddii taa runtii ajandaha shirkaas nimanka qaban qaabinaya isu xilqaamay waqtigooda runtii anagu waanu shaqaysanaa danahayagii baanu la joognaa reerahayagii baan la joognaa wax naga baylahayay ma jiro laakiin ninka dantii guud u istaagay ee u socda ee hadhiya habeen waqtigiisii shilinkiisii u bixinaya runtii waxaan qabaa inuu ammaan leeyahay laguna ammaano looguna mahad celiyo waayo waxaan qabaa wax kasta waxaa mar walba goboladan SSC dib u dhiga qof kii wax yiraahdo wax wanaagsan dadka baan u wadaa badana waxaa dhacda meeshii lagu ammaani lahaa inaan qofka isaga wax ka sheegno xumaantiisa horumarino adduunkuna waa ka tegaytaa waxaa la gaadhay waqtigii qofka wanaagiisa la horumarin lahaa waxa uu dadka danta guud qofku wuxuu ka qabtay waxaan qabaa markaa nimanka odayaasha iyo dhammaan bahaweynta ima dadka isu xilqaamay arinta shirka khaatumo inay ka midho dhaliyaan runtii waxaan qabaa anigu in waqti la siiyo lana taageero marka saan u fahmay adigu aad baad u taageersantahay waxaad u aragtaa shirka qaatumo ee soo socda inuu soo xalin doono oo soo gabagabeyn doono insha Allah anigu saasan filayaa deegaanada SSC su'aasha kale waxay ahayd maxaa ka jira in hogaankii SSC la bedelay su'aasha jecesha inaa ka bedeshay arinta qaatumo mise arintan bedel labada su'aalood waxaan rabaa khaliif inaan ka daba tago waa ka daba aan dhamaysto markaa قليف وحاول سؤال كلام كتير إنه هجانك SSC اللي بدلي وكحما إن أنا دمسترين وحنا وين طبعا هجانك اللي جه الله وحاول إن اللي بدلي سلبان حقلته سي أو اللي جو بدلي أما حلكي وكلوري جاي إنه نراهنا على السبري عرنتاس أديكم مدام قرب تشوق أتهاي كل ده كدجان كان أتهاي محد أديك حق أتكوك تهر وسؤال في عنوي أو ضد بدن يسوي الدين يعني رنتي
hoggaanka markii la dhisay 2009 bishii October anigu waxaan ahaa dadkii tagay Nairobi joogay qabanqaabadiisa iyo fikirka lahaa runtii jaaliyadda reer Nairobi ama East Africa haddaan idhaahdo waqti badan bay geliyeen sidii dadkan sool sanaag iyo cayn ay u yeelan lahaayeen tala midaysan waxaana dhacda oo marar badan anigu aan runtii talada mar walba boocama lagu shiray boocama 1 baa jiray 2 baa jiray 3 baa jiray mar walba meesha wax ka khaldanayeen mar walba wax wanaagsan baa soo baxay wixii wanaagsanaa ee la isku raacay ee lagu heshiiyo mar walba meeshii lagama soo qaadeen waayo waxa failure-ka ama dhibaatada u badan waxay ahayd Axmedow lama sameeyeen wariyaynu inagu heshiinay oo wax wanaagsan qodobo fiican baynu soo saarnay wariyaynu taladan yeenu uga dambaynaa yeenu ugu tagnaa yeenu ku ogaanaa lama oran jirin taasaa waxay keeni jirtay wax kasta oo wanaagsan in meesha lagaga yimaado waxaa dhacday haddaba si aan taa u dhicin waxaa laga dooday berigii Nairobi la joogay ee 2009 markii hoggaanka la sameeyay sidee yeenu taladan uga sii tagnaa waa la ogaa runtii ummad nin waliba meel u socdo aan common meel wax guud aan ka dhaxaynin waa la ogaa runtii hoggaanka in maaragtay ay dhibaato badan la soo fool saaranayso waxa laga badin waayay runtii waxay ahayd war sidaynu u sameeysan maxaynu maanta u baahannahay war waxaynu u baahannahay midnimo beeleed oo guud oo caam ah sidaynu u raadinaa waa wax u baahan iyada lafteeda in laga shaqeeyo ahayd iyo sidee wadankan dhibaatada ku haysta dadkan lamaatadee la haysto sidee loo xoreeyaa haddaan ku soo dhawaado cali sabarey iyo xaglad Saleeman xaglad toosiye iyo dhammaan nin kasta oo xil ka qabtay hoggaankan SSC waxa weeye 2 sano bay xilka xukunka soo hayeen waxa uu haray waa bil iyo wax ka yarba bil iyo maalmo weey intii loo doortay hoggaanka intii hoggaanku ay shaqeeyaan naaw hoggaankii wixii wanaagay ay soo wada sameeyeen hoggaanka wixii ay soo sameeyeen not only xaglad toosiye qudama cali sabarey ma nin kasta oo xil ka soo qabtay SSC wixii wanaagay ay soo sameeyeen waa wada leeyahay wixii xumaane ay soo sameeyeen ee inta ama ay qaban kari waayeen waa wada leeyahay haddii midnimadii iyo xoreyntii lagu dhaariyay ee Nairobi 2009 ay sameeyeen macnaha ay wax feeli gareemeen ama wax ay khaldameenna khaladka waa wada leeyahay wixii wanaagay ay sameeyeen ama ay dadku u qabteen ama kicintii dadkana waa wada leeyahay marka xukun baan kala wareejinay iyadoo wixiiba bil ka harsan tahay waa carqalad kale oo dadka ku soo abuurmayso wax yar iga raali noqo intaadan adigu aan ku gudbin qadka telefoonka walaal codka iska xir hadii aad su'aal qabtin su'aashaada waa dhiiban kartaa waa ku maqlaynaa walaal wixii su'aal aad qabtay su'aashaada waa dhiiban kartaa waa ku salaamay Bruce TV Larry su'aashayda waxa weeye waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo maadaama aad ka hadlaysaa arrimaha siyaasadda gobolada SSC waan ognahay in mataqaan shir lagu qabtay khaatumo lagu magacaabay London lagu qabtay koorna inuu jiray hoggaan la yiraahdo SSC hadda su'aashaydu waxay ku saabsan tahay laba wafti ayaa qolana xamar jirtaayo Saleeman xaglad toosiye oo ah hoggaankii SSC gudoomiyaha SSC iyo garaadkii iyo garaadka guud ay marayaan muqdisho guddi kale oo lagu magacaabay khaatumo yaasna habeen lagu tagay marka labada guddi ama labada wafti ma waxay u kala socdaan sidii macnaha khaatumo ah oo guddigeedii gaaru yahay SSC hore bise waa laba wafti ama laba guddi oo haldan ama hal organization ku socda okay walaal aad baad u mahadsan tahay su'aashaadana waan fahmay jawaabtana waxaad ka dhageysan kartaa qadka telefoonka sida u fahanteen su'aashan waxay la xiriirtaa waxa arintan hoggaanka iyo maxaan ku raadhaa shirkan qaatumo sida uu yiri haday dadka qaarkood hadda si fiican u maqlayn wuxuu yiri Saleeman oo hoggaamiyihii wuxuu tagay meesha la yiraahdo Xamar iyo garaadkii garaad jaamac oo iyagu la yiri waxay ku sii socdaan dhulkii xamar aaday lagu yiri laakiin waxay ku sii socdaan dhulkii dhinaca kale buu hoodle waxa tagay iyadana wafti ka tagay dibadaha Mareykanka Canada ilaa Europe oo qaban qaabinaya shirkii labadan miyay wada socdaan sida aan u fahmay mise way kala socdaan oo hal fikir bay u socdaan marka adiga aan ku siiyo adiga su'aalihii hore waxaan oo dhan ku dirsanaya maxay kuula muuqataa inta aanan u gelin su'aashan u dambaysa wax rabaa inaan ka daba tago shirkii khaatumo ee London lagu qabtay waa sida shirkii khaatumo ee London lagu qabtay shakhsiyan
marka sheekada la qurxinayo khaatimo horta waa kelmad aad u qurux badan waa sida erayga khaatimo waana duco waa sida macnaheedu oo ilaahay khaatimada nagu sin fi aakhiraba ma markaad shirka magaciisa eegtid aad buu qurux badan yahay waa sida shirka khaatimo waxay isugu yimid dad fara badan oo aqoon-yahan leh oo culamaa diin leh oo haween leh oo dhalinyaro leh oo cid walba leh oo beesha ay ka tirsan waa sida laakiin kulley anigu shakhsiyan xilliga lagu soo beegay shirka khaatimo wuxuu ahaa xilli SSC goboladeeda oo dhan from Nugaal to the Buuhoodle ay colaadi ka taagan tahay markhaatina aad ka tihiin labadiinuba SSC sidii aan kuu sheegay hore waxay iftiin dad soo baxay inkastoo iyagu ay suwanjelayeen haddana qoladan khaatimo abaabushay xilliyadan ay khaatimo abaabuleen waxay xilli colaad lagu jiro dagaaladii kalshaale iyo megeegle iyo hagowgana uu socday anigu waxaan u arkaa inuu ahaa markii horeba shirkan dadka loogu yeedhay dad iyagu daacadka ah ololahan socda inay ahaayeen laakiin ujeedada ka dambeysa ay ahayd burburinta iyo baaba iyo horseedka 20 sano oo dambe oo burbur u ah bulshada goboladaasi degta sababta ku leeyahay wax weeye xiliyad dagaal lagu jiray ahayd xiliyad dadku u baahnaayeen dhaqaale ahayd hadday noqon lahayd military hadday noqon lahayd caafimaad hadday noqon lahayd horumar kaleba aanu soo dhawaado sheekadayda shirka khaatimo waxay ahayd la tashi degdeg ah in la sameeyeen SSC sanad baa la doortay hogaankuna wuxuu sheegay maalintii la doortay in October-teeda haddii la doortana uu isdooranayo haddii kale uu jagada ka tagayo waxay in la sugo oo laga war dhowro midda kale sidii khaliifba ka dhawaajiyay boocame kow kitaabba gacanta loo saaray iyadoo beesha cid ka maqnayn boocame two la mid buu ahaa boocame tirina la mid buu ahaa waxaa kuu soo hadhay buuro wadal shirkii buuro wadal lagu qabtay oo beesha oo dhami isugu yimaadeen cid ka maqnayn iyadana kitaabba gacanta lagu saaray anigoo ka tusaale qaadanaya afartii shir ee lagu qabtay deegaanka Nugaasha ku yaal waliba ee kitaabka gacanta la saaray khaatimo oo la isugu yimid aan kitaab gacan la saarin oo London ah isuma kay qabsanaysaa anigu sheekadu salaadu meel ima wada qabsanayso waxay ahayd haddaan dib kugu yar noqdo 19 markii xorriyadda laga qaatay Ingiriiska gobolada waqooyiga iyo koonfurta markay qaateen dawladdii xilliyadaa dhalatay Buuhoodle iyo dhulkeena wuxuu ku yaalaa dhul xuduudda Itoobiya ku dhow maamuladu si aad uma gaadhaan odayaal dhaqameed ama garaadhaan noqdaan ama ugaasaan noqdaan baa ka soo talinaya inta nabadda bulshadan odayaashii intii ka hadhay ee ilaa hadda 20kii sano ee Soomaaliya ay baabasanayd ama 22kii sano ay baabasanayd odayaashii nabadda ka talinayay banaankan ka dhaafaya anigoo qurbaha ku koray oo wax ku bartay oo digri culus ku qaatay oo dalkaygii dib ugu noqon markii uu dagaalkii kalshaaliye hagowgana iyo meegaga la dhacay ee dhiigu daadanayay ba dagaalkii oo socdaan qabanaya shir degdega u malayn maayo aan kuugu soo noqdo waliba hadalka aan su'aasha labaad ee ah aan ka dhaxgalo Ali Sabri hogaankii iyo Ali Sabri anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay hogaanka waa la arkay waa sida shakhsiyadiisa waa la bartay waa sida wuxuu qaban karana waa la arkay waa sida salaam waxaan oran karaa waa hormuud waa sida waxa weeye iftiinsha waa sida laakiin salaam dab bushaday waa sida ama isagu ha burburiyo ama yaanu burburin ubadka yaryar waxay ku faanayeen SSC waxa la yiraahdo Sleeman xaq wuxuu leeyahay la bedelo yes I agree in la bedelo Sleeman oo maamulkiisii ay bedelaan khusuusida laftoodana iyaga laftooda horta inay si saxaan inta waxba la bedelin ninkan hadda la yiri wuxuu dhaariyay ishaag Ali Sabri Korneelka shalay wuxuu ahaa ninka haysta madaxtooyada Somaliland waa ninkan the first person waa ninka magacaabay hogaamiye ku xigeenka waa ninka loo magacaabay hadda hogaamiye ku xigeenka bal ninka wax yar ma iga sheegi kartaa taariikhdiisa wanu soo noqon doonaa taa shakhsiga inagoo shakhsiyadiisa marna uma baahnin horta Axmed inuu qofka shakhsiyadiisa galo waxaan ka hadli karaa qofkana muxuu qaban karaa iyo maxaan qaban karaa no personal attack ma jiro SSC burburkeeda waxa loo adeegsaday Somaliland baa loo adeegsaday inay SSC baabiso waxa loo adeegsaday Puntland inay baabiso oo hormuud ka yahay madaxweynaha ninka la yiraahdo waa madaxweyne Garowe jooga oo baabinayo dadka laba cadow baa jira oo ka yimid Buuhoodle iyo ka yimid Somaliland iyo Puntland iyo cadow gudaha ku jira oo jeclayn nabadda waxaan tusaale kaaga soo saarayaa markii SSC la dhisay waxa ku soo baxay xisbi la Kaafi community oo military khalif aragtida doonayaan dhiibto
hadda shirkan khaatimo tii waan kugu noqday Salebaan in la bedel xaq buu leeyahay hadduu shaqadiisa gudan waayo laakiin mar walba waxa taariikhdu xusi doontaa Salebaan inuu ahaa ninkii iftiishay arrintan iftiishay tan kale aan kugu soo noqdan waftigan la sheegay ee khaatimo waxa la yiri waa 6 nin baa iyagu mas'uul ka ah marka hore koowaad fikirkan oo waliba niman mutacalimiin oo niman muxtaram kale bulshada dhexdeeda iyo bulshada Soomaaliyeed ba isku soo duub 15 nin baa wax loo diray joogay Jigjiga 2 weeks baa waxa la siinayay training sidii ay bood ku tagi lahayd marka loo eego deegaanka beesho ay degto SSC maanta waxa ka bad qaba oo kaliya waa hawdka inta badan boqolkiiba 90 waxa nabad qaba waa hawdna waxa jooga odayaashii waligood ba nabad ka soo shaqeynayay 15 nin ee bood loo diray hadii anu xalay waan la hadlay odayaashii waxay ku yiraahdeen soo dhawaada waan soo dhaweynaa fikirkiina thank you laakiin hawd ma taala dhibaato fara badan ee waxaad ka bilowdaan wirwid ilaa ma ayaad nugaal gaadhisaan ka bacdi markaad waxa soo midaysaan annagu gamca furban soo dhaweynaa waxaad leenahay soo dhawaada aan kugu daro hal mid haddii ay isku dayaan inay odayaasha dhinac dhaafaan hadalka odayaashu ay u soo jeedeen ay dhaafaan oo ay sidoodii caadada hore aan uga baranay ama gruubada hore u jiri jireen inay la shiraan guuta koowaad waxa loo yaqaan dumarka iyo haweenka iyo carruurta oo ay fagaarayaal kula shiraan ay yiraahdaan odayaasha waan ignore garanaynaa ama odayaasha waxba ka qormayno ogow inaan shirkaasina soconin laakiin haddii odayaasha ay isu yimaadaan oo anigu kulli ma aaminayo sababtoo boo ama dhaartii boo ama ilaa kii buro wadal baan garanaya oo inta baan u soo noolaa haddii odayaashu qalbigooda ay soo jeediyo oo ay wanaag wadaan anigu number 1 qofka taageerayaan haddii aan taageersanay haddii se ay rabaan inay odayaasha go'aankooda dhaafaan oo ay guud koowaad la shiraan deena adeer macaan filka horena daawan aad baad u mahadsantahay Cabdi Aar asaahate laakiin Cabdi Aar aan mid yar kugu daro inta aan Cabdi u gudbin anagoo waqtigan u leeyahay sababtoo ta qalif inta aan u gudbin anagoo barnaamij kale aan rabno inaanu ka hadalno galabta waxaa jirtay shirka qaatumo dadka qaarkood inay u arkaan in la isugu keenay dad markaa ka soo wada jeeday deegaanka laakiin siyaasad ahaan aan isku waafaqsanayn waxaa ka mid ahayd NSUM waxaa ka mid ahaa hogaanka sidaas oo kalena waxaa ka mid ahaa oo meeshii joogay kaafi shirkaasniyo sida aanu maqaalo nagu ah meelo badan baa looga yimi nimankan ayagu qaban qaabiyaasha ka ahaa waxay qirteen inay yihiin guddi oo qaabilsanaa xagga xiriirinta wax jagacaan uma hayaan SSC adigu waxaad hadda ku dartay macnaheedu waxaad garanaysaa inay shirkaas u dhibaato ku ahaa wixii socday laakiin hogaankii sidiiba u jira oo Salebaan baa hogaankii ah waxaa la sameeyay wax midayna miyaynan idinla muuqan guddiyadii la sameeyay inay ay ahayd ee ka mid ahaa NSUM iyo hogaanka in shaqadii ay hore wadaan waxaa la sameeyay guddi dibadda arrimaha dibadda ah waxaa la sameeyay guddi arrimaha gudaha ah iyo guddi maalgelinta ah baa la sameeyay shir kalena waa loo ballamay tan kalena odayaasha in la xaq maro waxaan u malaynayaa inay ka soo horjeedaan oo sababta la yeeyay shirkan wadankan waa in lagu qabtaa isbuuciina soo dhaafay dhowr isbuuc ka hor shir lagu qabtay oo ahaayo waxay sheegeen macnaheedu 90% dadka u dhashay deegaanada inay dhulkii joogaan laga maarmaan ay tahay taladiis in dhulka la geeyo marka adigu ma kuula muuqataa maxaan ku yiraahdaa inay nimankani ay asiibeen in la mideeyo NSUM iyo SSC iyo kaafi ka bacdina taladii wadankii loola noqdo hawdiisida ha waxyaabo badan baan horta runtii kaga duwanahay Cabdi Aar walaalkay waxa weeye wax kasta oo la sameeyay wax kasta oo qofka bini aadanka isku day inuu sameeyo wuxuu leeyahay carqabado badan iyo dhibaato badan oo qofka ka hor yimaada wax boqolkiiba boqol hagaagana ma jiro waxa shirkii khaatuma ka hagaagay wuxuu ahaa in lagu midoobo hogaanka SSC taladiina loo celiyo dadkii odayaasha ee muxtarimka ahaa ee dhulkii jooga sida waayo dadkii degaankii bay joogaan dadka dhibaatada haysta waa dadka degaankii ku nool in la ogaado fikirka iyagu ay ka qabaan dadka kala qaybsanay ma qurbaha ku dhamaa wad dibad dhulkii baa u badan in dadkaasi lagala shaqeeyo sidii ay kala qaybsanaanta uga bixi lahaayeen helaan daboolkii ay macnaha dabool inay gaadhaan daboolkaas oo ah mid aanay dhaafi karin qof walba waa in wax qabto sida qofka bini aadanka sida ay wax u xadidaan wax qofku in wax xadidi karaan qof dhaqan baa xadida qof waxaa xadida diin baa xadida qof waxaa xadida shaqo waqti baa xadida qofba waxbaa la rabaa inuu xadido dadkan runtii isugu tagay reer London looma wada dhameyn lama oran karo qof waliba imaada
laakiin qofkii kari karay un baa tegay meesha ama awoodi karay waxaa dhibaatada haddaba markaa khaladka dhacay waxa weeye waxaa la sameeyey guddiyo waa run waan ogahay nimankii odayaasha ee arrintaa isu xilqaamay inayna wax xilaa haba yaraatee xil haddii ay doonayaan ilaa intay dhallinyaradoodii bay xilnimo dowladeed iyo mid soomaaliyeed iyo mid international intaba soo mareen iyaguna waa niman retire wey kule anigu sidaan anigu ogahay waxa weeye markaa dadkii loo doortay ee la isku daray guddiyadii ama NSU ma ka yimaadeen ama Kafi community ka yimaadeen ama dadka kale SSC ka yimaadeen ama SSC ba ahaadeen maanay jirin wax wada shaqeyn oo ka dhaxeeya iyaga dhexdooda markii lo iyo geel iyo ari iyo wax aan macnaha marka la isku daro qolooyin noocaas oo kala blue iyo black iyo white iyo markaad colors isu keento waxyaabo badan oo maaragtay runtii waxyaabo yar oo waxaa jira qofka laga rabo aan shaqeynayn baa jirta marka iyaga laftooda khaladka halka ka dhacay wuxuu ahaa looma eegin dadkani ma wada shaqeyn karaan su'aasha la isma weydiin marka iyadoo la isweydiinin waxaa hawl gabay oo shaqadoodii gabay runtii dadkii inay dadka qurba joogta inay wacyi geliyaan waxaa hawl gabay dadkii la rabay inay maaliyadaha iyo meel walba ka qayb qaataan inay shirar gobol walba u maraan bay ahayd inay meel walba tagaan oo dadku joogo nadoonli magaalooyinka waaweyn oo quran maaha alyawm lahada Minnesota magaalada la yiraahdo ama state-kan la yiraahdo waa state-ka dadka ugu badan ee jaaliyada SSC ay degan tahay waa state-ka ugu badan ee dadka professionalism-ka ee SSC ay degan yihiin waxa weeye ilaa hadda dadkii loo soo magacaabay inay dadkan wacyi geliyaan ee foreign affairs ka ahama nadoonli odayaasha ma mayna imanin cabdi ar break intaan gelin ma rabtaan inaad laba eray baan ugu daraya nimankan khaatuma hadda iyo odayaashan su-aashu waxay tahay waxay soo qabteen xilaal aada u waaweyn kooda ugu yar waa master degree ah intooda badan marka loo eego aqoonna leh 40 years ago baa dalka ugu dambeysay 40 years ago baa dhammaantood dalka ugu dambeysay mid baan u malanayaa inuu baryahan dalka tegtegayay anoon fikradooda diidanayn oo beesha ay ka dhasheen fikradoodana aan xaasidayn waxaa ka mid ah horta maxay qabteen 20 sanadood ka hor xagee joogeen maxay u qabteen gobolada SSC dhammaantoodna waxay joogeen hay'ado international ah oo marka ay hargeysa geynayeen non-profit organizationska oo dadka caawinayeen garowana ay geynayeen xagee ka ogaayeen gobolada SSC dhammaantood ma maanta soo tooseen midda kale 15 nin ee tagi kari waayay boohoodle tagi kari waayay khadka la qaadan kartaa 15 wiil ee ku shirayay jigjigay maanta boohoodle qaarkood jooga ee u dhuumanaya baabuur ku dhuumanaya iyagoo saddex isu qaybiyay boohoodle ku tagaya qofka bini'aadamkii markuu wanaag wado ilaahayna uu jecel yahay bini'aadamkuna uu jecel yahay waana la soo dhaweyn karaa ninka jigjiga joogay hadduu diyaarad raaco uu hargeysa ka dego yiraahdo boohoodle la socda oo la dilo taariikhda xus lahayd ka garow jooga ee naadirkii ka baqaya ama cabdisamad ka baqaya ama nin kale ka baqaya haddii uu tagi lahaa oo lagu dili lahaa isagoo wanaag wada taariikhda xus lahayd ninka soo dhuumanaya ee gaari ku soo dhuumanaya boohoodle imanaya la shirkii khaatimaan u raadinaya adhoodkiisa inay wax soo wadaan anu waxa leeyahay qalbigeena soo jeediyo haddii khaatimad daacad laga yahayna anigu waan soo dhaweynayna haddii aan daacad laga hayna ilmaada real ciyaarta horu annaga markaad leedahay adiga shakhsi ahaan badka ma annagoo dhan ka hadlaysaa mise annagoo qologoona okay cabdi aad baad u mahadsan tahay inaad fikradaada si qalbi furan aad u dhiibatid halka aad naga daawanaysaan waa Darwish TV barnaamijkana waxaan idiin soo deyn doonaa maalin walba oo ah sabti isagoo live hadban waxaan ka hadli doonaa xaaladaha siyaasadeed kuwa bulsho ee ka jira deegaanada SSC waana Darwish National TV haddii aad doonaysaan inaad ka qayb qaadataan ama aad wax su'aalaana weydiisaan maalinta sabtida ah 2 duhurnimo Minnesota time waxaad naga soo wici kartaan telefoonka ah 612-331-85-78 haddana waxaan qaadanaynaa break yara we will be back after 5 minutes 5 daqiiqo bacdina isku soo noqon doonaa haddii ilaahay daawadayaal mar labaad ku soo dhawaada halka aad naga daawanaysaan waa Darwish National TV oo idinkaga imanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waana barnaamij live ah oo aad halkan ka daawan doontaan haddii ilaahay idmo maalin walba oo sabti ah saacada markay tahay 2 haddii aad jeceshahay barnaamijkan inaad ka qayb qaadatid waxaad naga soo wici kartaa telefoonka ah 612-331-8578 dadka telefoonka hadda waxaa noogu jira Salebaan Wajixaad oo isagu nin muctarif ka ah xagga SSC
waxyaalo badanna u soo qabtay intii ay jirtay hadda SSC oo isaguna naftigiisa nagala soo qayb galay doodan hadda ka socota Darwish National TV Salaban marka ugu horeysa ku soo dhawow maadaama aad adigu hadda soo gashay bal adigu maxaad fikir ahaantaada ama raay aad baad ka oran lahayd waxyaalaha aanu ka wada hadlaynay ama qaatumaha ahaado ama xaaladii hogaanka aad adigu naftigaaga aad qaybta ka ahayd maxaad naga oran kartaa Salaban codkaagana kor u qaad hadii lahaydmo aad iyo aad baan u mahadsantahay waxaan aad idinku bogaadinayaa barnaamijkan cusub iyo Darwish TV National maanta bilaabay hawsha tan ah inuu dadka live ugu soo daayo dood ku salaysan arrimaha ka socda deegaanka SSC aad iyo aad baan idinku hambalyeynaya dhammaan intiina qabanaysa iyo doocame online-ba waa su'aal wanaagsan doodana waan dhegeysanayay waa dood wanaagsan bay ahayd sida runtaa waxa weeye wadda arrimaha SSC ka socda hadda aad iyo aad bay moodaa inay u fara badan yihiin sida runtaa wax walbana siday tahay loo wajahayaa wanaagsan SSC sida runtaa waxay ahayd wax aad u wanaagsan waxay ahayd arrin ugu baahnaayeen dadka SSC una soo baxday wax badanna ka qabatay wacyigii hadda jiray markaa la doonayo wax laga qabto hase haatee wax walba oo soconaya upside down ama waa marba siday dee noqonayaan oo wuxuun baa isbedelaya waxyaalaha isbedelayaana wacyigeeday leedahay ha isbedeleene maadaama waxa kale ay yihiin masiir weereed yihiin masiir degaaneed yihiin mustaqbalkii dadka yihiin waxaa loo baahan yahay in aan lagu eegin uun just SSC unbaa dee dhalatay SSC unbaa wax wadaysa laakiinse wixii tala ah ee lagu soo kordhin karo wixii wax lagu qaban karo ee wixii kor u sii socodsiin kara in la soo dhaweeyo oo laga shaqaysiiyo ayaa muhiima meesha ku jira sida runtaa waxa weeye muddada SSC soo shaqaynaysay horena u sheegayna wax badan soo qabatay waxaa hadda yimi ku soo kordhay deegaanada SSC waa shirkii London lagu qabtay loo bixiyay Khaatumow kow loo bixiyay shirkaas waxaa wada tashi la doonaya inuu ay ka wada tashadaan dadka qurbaha jooga ama u sii gogaxaanaan sidii shacabka u dhashay SSC gudaha loogu qaban lahaa shir oo dibad iyo guduba la iskugu tegi lahaa aqoontii la geyn lahaa isimadii caaqiladii ningarboodkii nin walba wax ku soo kordhin karaa in la iskugu tago oo la iswaraysto oo waxaan ku idhahdaa laga gaadho maqaam cad laga soo saaro oo ah war maxaa inoo dara waad aragtaan halkaynu marayno waad aragtaan waxaynaga dhiman midnimadeenna horumarkeenna hawsha taseen u derdergelin lahayn yacni wixii dee dib u soo nooleeyo oo wixii ka dhinaa SSC kor loogu soo qaado atinkaasay ku salaysnayd kii baana hadda socota oo waatan hadda hawsheedii dardar weyn loogu jiro Khaatumo aad bay u shaqaynaysaa waxaan ku idhahdaa guddiyaha la sameeyey guddiyadii way shaqaynayaan hadda waxaa la diray guddi 15 wadankiibay tageen waxay u gogolxaanayaan sidii shirkaasi u dhici lahaa oo la iskugu iman lahaa oo geel loo hoos fadhiisan lahaa oo talada reerka iyo masiirka loo midayn lahaa waxna loo qaban lahaa haddii waxa weeye haddaan ku soo koobo waa mid loo baahnaa waana takliya maanta taladu ku jirto waana takliya maanta inoo ah sayid ciidan waxay gaalada jiraado ama maanta inoo ah tii aynu kaga sanata bixi lahayn intaa yar ee xoogaa inagu yara dhacday tii inaga saari lahayd weye marka shacabka SSC meel walba ay joogaan inay soo dhaweeyaan oo haddii aanay weerar badan ka hayn sida Khaatumo u socoto ama sidii qofkii markaa yara dareemayeen wax uga dhimayeen dadka arrintan ku dhex jira inay soo wareystaan oo weydiiyaan hadda halkay wax marayso laakiin waa only way out iminka hadda SSC shacabkeeda u yaalla waa Khaatumo oo la taageero iyadoo aynu kaga mida dhalano hadda waa bego aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Salaban Wajaxaad oo isagu jooga magaalada North Carolina oo asagana qadka telefoonka hadda nagula soo xiriiray Salaban adiga bal noogu jir hadii la ahayd qadka telefoonka hadii la ahayd ninka la yiraahdo Khaliif Jaamac waxaa ka mid tahay guddi lagu magacaabay magaalada Minneapolis inay qaban qaabiyaan shir laga yaabo raggii guddigii xiriirinta
shirki qaatuma inay halkan imanayaan Minneapolis bal maxaa nooga sheegi kartaa shirkaas soo socda oo lagu qabanayo hadda gobolkan Minnesota Axmed waad mahadsantihiin dhamaantiin runtii arinta shirka halkan lagu qabanayo lagu taageerayo shirka qaatumo ee ka dhici doona gobolka min dhulkeenii runtii waa fikir dad badan oo tolka ama dadka halkan degan ay isweydiinayaan in dhaweydba waayo sidaan oraahdaydi hore iriba waxay ahayd dadkan Minnesota degan dadka Minnesota raalahaada xoogaa cunaha ay xidhan maanta yaraha hargabaan yaraha ayaan filayaa arintan Minnesota in shir lagu qabto laguna taageero shirka qaatumo runtii waa fikir dad badan oo masiirka ummadda ay ama deegaanka ka soo jeeda SSC ay in dhaweydba soo socday buu ahaa arinta iyada runtii waxaanu wadnay qorshe ah in haddii Ilaahay raali ka noqdo berito oo axada waan u ballansanahay runtii qaabkii aan u dhigi lahayn shirka isaga ama xafladaasi waxaa imanaya dhammaan odayaashii shirka qaatumo ama hal yiraahdo G6 inay Minnesota yimaadaan waayo waxa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan why Minnesota ay dadkaasi u imanayaan ama why xafladan hadda maxaa kalifay anu waxaan oran lahaa runtii waa laba qodob qodobka koowaad jaaliyada ugu badan ee gobolada SSC dadka degan waxay degan yihiin state-ka Minnesota taa waxaan oran karaa runtii waa qodob loogu doortay loona baahan yahay in lagu taageero shirka qaatumo qodobka labaadna waxa weeye waxaanu fursad u helnay runtii oo halkan magaaladayada jooga runtii oday kamid ah odayaasha shirka qaatumo waday Professor Ali Khaliif Kaleyd runtii in isaga iyo odayaasha kaleba reer Minnesota ay uga warbixiyaan hadafka iyo meesha ay tigsanayso shirka qaatumo iyo waxa missionkoodu yahay mission statementigooda si cad oo bareer marka labadaasba waa jirtaa shirkaasina kulay anagu waxaan qorsheynaynaa hadii la haydmo waa wax loo baahan yahay inaan dadajino runtii u baahan wuxuuna dhacayaa runtii long weekendigan ama weekendiga soo socda ee ka dambeeya maalinta Eid ama September 2 ama 3 hadii la haydmo shirka marka waa shir loo qabanayo jaaliyada Minnesota say maxay u taageeri lahaayeen ugana qayb qaadan lahaayeen shirka ka dhici doona wadankii waxaa jirta su'aal qadka telefoonka lagu soo weydiiyay Salebaan wajaxaad adigu naftigaaga su'aashaas waa ka qayb qaadan kartaa inkastoo aan filayo in aan hadda waxba laga ogeyn bal sida xaaladdu noqon doonto ama waxa go'aamada ka soo bixi doona shirkaas hase ahaatee haddii aan su'aal ku weydiiyo Salebaan wajaxaad maadaama adigu aad qadka telefoonka aad noogu jirtid waxaad tiri guddigii lagu magacaabay shirkii Ingiriiska way shaqaynayaan in yar ka horna waxaanu ka wada hadlaynay eedu inay ka timid guddigii lagu sameeyay shirkii Ingiriiska inay wada shaqayn maxaa nooga sheegi kartaa guddigii annagu bal annaga maxaa nooga sheegi kartaa gudiyadii la magacaabay soo far maxay qabteen aad baa umahadsantahay Axmed I think guddiga waan ka mid ahay guddiga dhaqaalahan ka mid ahay guddiga fulinta waa ku jira laba guddi baa kaga jira sida runta horta guddiyada meesha lagu soo sameeyay 4 guddi bay ahaayeen inuu 4 guddi kala ahaa tii arrimaha gudaha arrimaha dibadda tii dhaqaalaha iyo tii amniga afartaas la soo sameeyay afartuba sida ay barnaamijka loogu kala baahnaa ayaa ay u kala dardar iyo u kala badnaayeen haddii ay diinkeeda leeyahay siday sida ay hawsha wadaana waa mid dardar xoog la ku socotay si runtaa waxaa laga yaabaa waa run oo dad badan oo oran karaan war internet kamaan arag conference qabanayaan maan arag waxay hawsha tani waa hawl u baahan in aynu si foojignaana oo wanaagsan oo cilmiyeysan oo habaysan looga shaqeeyo hadda guddiga dhaqaalaha kulan ka mid ah jaaliyadaha SSC ee adduunka oo dhan meel walba ay joogaan waanu la shaqeey gooni baanu la shaqeynay group baanu la shaqeynay barnaamijkaanu la socodsiinay hawlo halka marayaan baanu la socodsiinay waxa looga baahan yahay jaaliyad ahaan uga baahan tahay qaatumo sidii uu si habsami uga qaybgeli lahaayeen baan uga waranay hawshii ku beegneedna sidii ay farankeedu qaban lahaayeen ay uga shaqayn lahaayeenna waanu gelinay wayna ku hawjeen